shirkan jaraa'id oo maanta xarunta madaxtooyada ee maamul goboleedka Puntland uu ku qabtay madaxweynaha dawladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa uu daba joogaa shirkii xalata ay yeesheen 16 musharax ee ku aadana kulankii shalata ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada madaxweynaha dawladda ku meel gaarka isla markaasina looga hadlayay arrimaha soo magacaabista guddiga doorashooyinka madaxweynaha dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf Axmed ayaa waxa uu halkaas ku soo bandhigay waxyaabihii shalata musharaxiinta ay ka wada hadleen سلام كدب شريته وحنا إذن لسه عسيرة أنا شريته إيو دراد لبضوا آدو مشغولي أنا المشرحين تا أما ضدك أوتر تميا مدحوين النبدا دور الشرع إيمان دون تأب بوينتلان أنا دحد حاديو si aan wax fidmaa iyo wax shidaahi oo imaan doorashada markii la gaaro haddaan dhageystay kulligood runtii waxa dhan oo ay sheegayaan waa wax shakiyaad ku dhisan dad baa ka dhex muuqda dadka tartamayaasha aan isku kalsoonayn waxyaabihii ay sheegteen oo igala hadleen oo yiraahdeen waxyaabaha haddaan wax laga qaban waxba hagaagi mayaan waa dhex galayo maamulka madaxda joogtana waa waraystay musharaxiintiina waa dhageystay ilaa labada dhinacba dhageysatidna dadka dee si aad u dhexdhexaadisay iyo si aad adigu go-aan u gaadhid ma taqaanin kulligood waxa ay ka cabanayeen way ii sheegeen waxay ka cabanayeen guddi la magacaabay guddiga ansixinta xildhibaanada madax dhaqameedka ee beeluhu ay soo qornayaan oo ay yidhaahdeen waa dhinac waxay ka cabanayeen dhaqaalo wax la yidhaahdo qaarkood waxay isku dayayeen madaxweynaha Puntland hadduu musharax yahay ee istiqaalaha sii geeyo annaga nala mid noqdo si aanu awood u maaragtay wixii ku maamulo u yeelan anay wax kale oo macnaale oo intaa ka baxsan iimay sheegin markaan runtii aad ugu mashquulay oo hadalkii aad loo jeexjeexay wixii aan ku dhexdhexaadiyay ee la isla aqbalay baan idin sheegayaa marka ninkii been sheega haddee wax kale u jeedaa wixii ceebo meesha ka yimaadana isagaa leh ninkii tartan u socda oo adigu madaxnimo raadi un ay ka tahay ee aan dalkan fidmo ka sameeya arrintiisu ahayna wax lagu qanci karo oo lagu kala biskan karo oo runtii doorashadii lagu geli karaan ku dhexdhexaadiyay anigu shalayto markaan akhriyay guddiga la soo magacaabay oo aan sharciga iyo dastuurka iyo nidaamka eegnay guddiga inay magacaabaan waxaa xaq u leh madaxda Puntland ee musharaxiinta awood uma leh inay iyagu dadka magacaabaan waa qodob markaan eegay guddiga la soo magacaabay xubnihiisa oo ay yiraahdeen waxay qaraabo leeyihiin ama maaragtay dawladda u shaqeeyaan amba waa qaraabo dhow ee madaxda Puntland markaan fitishay shakhsiyaad badan oo anigu aan aqaan baa ku jira haatan in la isaga tala galo qofku xaqdarru samaynayaana aniga waxay la tahay inayn qumanayn anigu waxaan ku dhexdhexaadiyey guddigaasi soo un ansixinta xildhibaanada la soo magacaabi doona ma hawl kale leeyahay ma waajib kale leeyahay ma awood kala siiseen baa jira madaxweynuhu wuxuu yiri maya waxaan ku heshiisiyey musharaxiintii oo madaxweynuhuna ku jiro in ninkii madax dhaqameedkiisii xildhibaan u soo qoran
inaan guddigu diidi karin haddaanu dembiilo ahayn. dembiilo maxaa loo jeedaa? haddaanu dembi horey u gelin culus oo dalka iyo dadka liddi ku ah. madaxweyne yuusuf ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay hadal ay shalata musharaxiintu ay ka dhawaajiyeen oo ku aadanaa in uu xilka madaxtinimada uu iska casilo maadaama uu musharax uu yahay madaxweynaha iminka xilka haya jenaraal maxamuud muuse xirse cadde. tan ah madaxweynaha hadduu tartamayo istiqaalaha geeyo war meesha dastuur baa yaala sharci baa yaala ninkan mudduu leeyahay ya inagu ma tuqun karree sharcigaan raacaynaaye haatan waxba idin yeeli maayo waxba idinma yeeli karo ee iska daay. waxaan kaloo idhi haddii shaki idinku jira weli waxaan idiin imanayaa doorashadii markii soo dhawaato haddii rabbi idin iminka waa tegayaaye waa idiin soo noqon doonaa. 5 isim oo cadaalad ugu yaqaan guddi ha laga dhigo oo reer Puntland anagu iskala joogayaa jajuub haddii la isku dayo ama magaciisa la isku dayo ama xaqdara timaado ama waxaas yimaadaan annaga inoo taale guddiga uma taal. shir saxaafadeedkan uu qabtay madaxweynaha dowladda federaalka ku meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku aadanaa in uu cadeeyo markaasi kulankii shalay ay wada yeesheen arrinta ay ku aadan musharaxiinta ka cabanayay guddiga uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland jenaraal maxamuud muuse xirse cadde ee loo magacaabay markaasi guddiga khilaafaadka ee xukuumadda gaar ahaan dhinaca doorashada iyadoo madaxweynaha dowladda ku meel gaarka uu cadeeyay in arrintaasi shalata lagu heshiiyey isla markaasina musharaxiintu iyagu cabashooyin kala gedisan ay ka muujiyeen shirar jaraa'idna ay qabteen isagoo madaxweynaha dowladda ku meel gaarka uu sheegay in arrintaasi ay caddahay isla markaasina tahay mid si aadan loogu heshiiyey. أحمد موسى علي أحمد شوكر تلفزيون عالمي ATN مقالة قروي.